بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمانا بديسا ولا من أصحابها من كستو الدنيا كتشوفها وبرنامج كني برنامجنا رشدة يكمنتينا سو دواada كنا meel نقدر kasta دور joogtaan سنة هو الصومالي سماوات سو دوار ملك استوجبتنا دمانتي aad iyo aad baan idin islaaminaa meel kasta aad joogtaan asxaabtayada friendskeega familigayaga soo wada dhawaadaan idin leenahay maasha allah waa la yar mashquulay laakiin waa la iskeenay maxaa haystaan maxaa idinku cusub waxaynu daadegana insha allah barnaamijyadeeni hadaha waynu soo tabi jirnay xiliyadan oo kala maartay faydeysi iyo waxyaabaha wacdiga jira marba aynu ka hadalno waxyaabo badan baan maanta ka hadli doonaa insha allah inaad macnaheedu dhagaha furtaan oo maartay heeday interest badan siisaan insha allah rajayn doonaa insha allah waxaan ka hadli doonaa mawduucyada hadda ka taagan waddankeennii iyo maartay iyo dhibaatooyinkan badan ee maartay jira soo noqnoqda insha allah markaynu gudagolno barnaamijkeena waxaynu ka hadli doonaa caawa dhibaato mar walba soo noqnoqota waddankeeni kusoo noqnoqota oo aynu doonayno inaynu ka hadalno si aanay usoo noqnoqonin iyo dadka ku shuqulka leh inay wax ka qabtaan waxaynu ka hadlaynaa insha allah dhibaatooyin ah dhallaanka iyo caruuraha yaryar maaragtay sida jirka iyo dadka maaragtay aan qaangaadhka ahayn dhibaatooyinka maaragtay qabsadaan hadda sida hadda ka jirto faraxumaan ha noqoto dhibaatooyin ama tacadiye ha noqoto waxyaabahaas inaynu ka hadalno waayo maxaa heday xagga maaragtay diinta waxa weeye qofku haddii aanu waxba ka qaban karaynin waa inuu maaragtay u hadlo oo hadal maaragtay uu ka hadlo waxa in wax laga qabto haddii aanu markaanu hadal kari karaynin inuu maaragtay isha ka noqo marka maanta waxaan samaynaynaa inaanu ka hadalno waan waxyaabaha soo noqnoqonaya aynu gaadhsiino dadka maaragtay ee khusayso ee madaxdeena insha allah markaan barnaamijkeena maaragtay u gododegno waxaan xusi doonaa insha allah dadka ay khusayso weliba haweenka barmageedada ah ayayna caawa si maaragtay ku talaxtigi doonaa ku dheeraan doonaa dad walbana dadkooda maaragtay dhigooda ayaa wax ka qabta arrimahaas oo kale oo dhun daloola guriga ummadda guriga hooyooyinka waxay tahay inay arrimahaas oo kale dabagal ku sameeyaan inay dumarka baarlamaanka ka jira ku riixaan in la adkeeyo xeerkaas oo kale in maaragtay waxyaabahaas oo dhan laga hadlo oo maaragtay aan maaragtay maxaa heday culays adag la saaro insha allah marka arrintan way soo noqnoqotay arrintii ugu dambeysay hadda maaragtay ayaynu ka hadli doonaa insha allah ikraana bal weydiin maadaama iyadana waa aragto insha allah maasha allah horta dhammaan waan idin soo wada dhaweynayaa meel kasta aad joogtaan arrintan ana caawa maxay haytoy aan ka hadli doonaana waa mid u baahan in laga hadlo meel kasta aynu joogno haddaynu Soomaali nahay waxyaalo iska basiida oo macno weyn ku fadhiyinba waynu buunbuuninaa amba maxay haytoy waynu qaadqaadnaa laakiin waxyaalaha reality-ga ah ee maxay haytoy u baahan in kortooda loogu tago amba cod dheer laga dhiibto amba mid dhowba laga dhiibto inta badan kuma hadallo waxyaalo kale ayaynu ku mashquulsannahay baryahan waxaa ka jira social media waa meesha bulshadu ay ku kulanto soomaaliduna ay isku aragto waxa ka jiray waxyaalo yar oo la waaweyneynayo sida iminka kiliibkii u dambeeyey amba sawirkii u dambeeyey aan dhehe inantii yarayde maxay haytoy muqdisho ku noolay inantaa yar maasha allah waxaan kuri waa inan yaroo dhalinyaro weligeed bay sheekaysan jirtay haddana kala noqon jirtay wax dhibi kuma jiri jirin laakiin dhalinyaradii iyadoo ay sheekaysanayso ayaa si maxay tahay hoosa wax laysaga duubaya kabacdina marka la kala noqdo argoos bay isu bedelaysaa sheekada taasi markaa kiliibkaa yar ee la duubay runtii dee inantuna way u bareersanayd oo may ahayn wax dee ay samaysa may ahayn dee inankuna wuu ka duubay waxaana keentay cadhadii ay kala noqdeen unbuu isagiina uu soo bandhigay laakiin sideeda bannaanba ma aha mid habboon
mid wanaagsanna maaha walaashayda iga yar maxay heetay hadday shukaansanayso si sharaf leh wanaagsan iyadoo xijaabkeeda qabtay hagoogan inay u shukaansato ayaa looga baahan yahay inan kastoo Soomaaliyeed sharafteeda ilaashato inan kastoo Soomaaliyeedna inanta uu shukaansanaya amba in yar hala socdo amba in badan hala socdo inaan waxyaalo qalada ku qasbin jacaylka ay u hayso ka faa'iidaysanin maxay heetay aanu screenshot ka qaadanin mar dhow marka hawshii ileen xagga rabbi bay ku xiran tahay wala kala noqon karaa uunu kaga aargoosanin taasina inay dhacdo ma qurux badno sidii dhaqanka inoo ahayd ee laysu shukaansan jiray haddii calafku israaciyana laysu raaci jiray haddii kalena loo kala joogsan jiray inay sheekada ku ekeeyaan dhallinyarada hadda jirta ayaa aad iyo aad u jeclaysan lahayn maadaama annaga xumaantoodana dhibayso wanaaggoodana aanu jeclaysanayn qof kastoo Soomaaliyeed oo social media wanaag ka samaynaya amba horumar ka samaynaya runtii markaan idin sheego waan ku farxanaa maxay heetay waan maxay annagana yidiilo qurux badan bay noo noqotaa iyo ku dayasho inaanu isaga si samayno laakiin haddii ay maxay heetay aynu wax khaldan amba wax xun iska raadino taasi ma qurux badno wax khaldan ka gudbinaysaa amba aad leedahay ka gudbi waa walaasha waa hooyada waa inantaad dhali doonto caar gurigay kula joogaan waanay kusoo koriyeen intan baanay kusoo la ekaysiiyeen marka waxaad xumaan uga doontaa ma qurux badna taasaan intaa kaga baxaya wax loo daba socsocdo oo loo waaweyneeyo inanta sawirkeeda la qaado oo waxaan ku buuriyey social media meel kastaaba kasoo hadashana ma aha taasi waayo waxyaala inta yar ee aragteen ka badan sameeyey ayaa jooga wadamada amba innaga inagu abtirsado oo Soomaali ah kuwaaba lagama hadlaynin marka in qof keliya la ataagreeyo aad u foolxun tahay maasha allah rashid fadal baqay waxaan horta marka ugu horeysa mar labaad iyo mar saddexaad waan ka xunahay arrimahaas oo kala in maaragtay dadka loo soo bandhigo in maaragtay social media la soo geliyo waa arrin aad iyo aad u xun oo faaxishnimo ha ahaato inanka ama inanta labadooduba khalad bay yihiin sababtay tahay khaladkana dadka laguma supporti karayo dad badan dadba qaar sibay uga hadlaan qof walba ra'yigiisu ka hadlaya annaguna ra'yigaygan ka hadlayna marka waxaan leenahay haddii britola ay arrintaas soo noqoto oo khaladka lagu supporti karayo britolana maxaa yeelay wax caadi noqonaysaa waxay noqonaysaa faaxisho dhaqankeennii iyo maaragtay diinteennina aad bay u tumaysaa arrintaas waxaynu ka hadlaynaa oo kale hooyada hablaha iyo dadka bariimageydada ah waa astaanta dalka sababtay tahay hal mid baan tusay example baan siinaya marka la leeyahay motherland ama marka la leeyahay dhulka hooyo maxaa loo yidhi dhulka aabba loo waa dhulka hooyo loo yidhi astaanta koowaad waxaa ogaataan iyo sharafta koowaad inaad tihiin haweenkana waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo la ixtiraamo inan kastoo inan shukaansanaya markii diidana aanu maaragtay kufsi kula kicin iyo arrimo xun taas waxaa loo baahan yahay markaa cawaaqib xumada imanaysa in la xanuujiyo dadkaas in dadka maaragtay maxay ahaday markiiba dadka soo gelayaan dadka maaragtay waalidiinta iyo odayaasha in aanay arrintaa dowladdu ku sii degin in ciqaabtiisa qofka la marya marka arrintaas way yaraanaysaa si arrinkaa loo yareeyo waa in dadka maaragtay marka way soo imanaya dhaqaalaha kala qaadanaya waa in la joojiya waa inuu qasab maraa sharciga waa in la baasgareeya waa in baarlamaanka la geeya waa in sharciga lagu adkeeya ama ha kala qaataan ama yee kala qaadanin ama ha iscafiyaan ama iscafiyaan ama la isu guriyo ama isu gursanin waxa weeye waa in la marinayo sharciga qof حبيب معن maxay heetay horta Soomaaliya marka aan iraahdo dulubaha ay ka digi leedahay ama meelaha runtii ay ka xasilay leedahay anigu waxa aan ku tilmaami karaa waxaan dulmi fara badan oo barbakeydada laga gelayo amba dadka aan maxay heetay xumaantii lagu samaynayo aynay jiraan waayo haddii xukuumadda la iska ilaaliyo haddii dadka ixtiraamka iyo sharafta mudan la ixtiraamo qof kastaba meeshiisa maxay ahayd sharaftiisa lagu ilaaliyo si ahaanba dadka ay khusayso
ma ay timaadeen maxay ahayd dhibaatada inta la eegi laakiin waddankeenu wuxuu uu ka deglayahay cuqubo qof u tasheeganaya qofka waa kaa xoog weyne wixiisi ka qaadaya waxaan kugu uri qof aan hadli karayno waxaan kugu uriyey yes qof miskiina oo sigaar gadanaya oo toddobaadkiisa kala soo baxaya loo dhiibay lacagaan lacagtii ahayn kabacdi markuu yiri lacagtu ma dhamana bash lagaga siiyey waxyaalahaas ma wax laga xumaado weeye nafti baa sigaar noqotay nafti baa lagu dilayaa sigaar wax kale iska daayay ma waxaasi wax macani waddankeenu ku degi kara maaha qaab xunku ku mutaysan karaa waxa samaynaya dadkiisii qaraxyada la samaynayo iyo dadka intaas nafta waayay waxa markii ka soo gudubno dadka masaakiinta ee guryahooda laga qaadanayo badeecadooda lagu dilayo hablaha yaryar ee afajirada ee xoolkooda loogu imanayo hablaha yaryar ee malcaamadaha loo dhigayo uu leeyahay quraan bay ka soo bixi weydayo kabacdina quraan hadday ka soo bixi weyday quraanka muu iska sii daayay muxuu qabsanaya waxa weeye cadaalad darrada taala weeye cadaalad darrada taala waa in lagu adkeeyo waxyaabahaas oo dhan waa inaynu anigii meel uga soo wada istaagnaa dhibtaas haddaynu nahay Soomaali arrintaasna qof walba oo shakhsiya oo Soomaali sheeganayana way dambaysaa sometimes videoda markaan daawadana waxaa dhici weydana saxan weeye oo nigami weeye ilmo yaro 8 jir muxuu galbada muxuu kasbaday ilmaha yar 8 jirka muxuu sameeyey marxamadda la dhigay ma saxba markaa ku dhiibay waxa weeye arrintaas wax loo baahan yahay marxamadda la dhigayaa baa lagu yiri quraankii ilaahay baa meesha lagu baranayaa ilmihii quraankii aayad buu garan waayay waxaan kugu uriyay baradiisa qoorta loo surayaa kabacdina waxaan kugu wuxuu doono ka samaysanaya waxaas markaa maxay tahay kii quraanka dhigayay mee diinta yaqaanay mee ilaahay ka baqayay mee soo ma aha meesha inuu wuxuu ka raadsanayay uun ay tahay lindiina muu dhigaynin kaasiye wuxuu ka raadsanayay waxay tahay wixii uu ku noolaan lahaa inuu kasoo raadsado oo dhaqaale ka sameeyo ayuunbuu meesha u furtay because diinteenu may odhanin dee dadka ku jeesjeesoo ku sameeyo oo dilo oo waxaan kugu uriyey dhaqan xun keeno oo dee may odhanin laakiin qofkaasi bariiskiisa uun buu raadsanayay ilmihii yaraa intuu ciijiyey wuxuu doona uu ka samaystay haye ilmahaas waa ilmo yar waa 8 jir waxba ma kala garanayo waxaan kugu uri hooyaa dhashay aabbaa dhalay faamiligu ka soo jeeda muxuu galabsada muxuu ninkan dhakada isaga saaray u fulfulay soo khalad maaha haye yaa ka hadlay social mediaha qofkeebaa ka hadlay qofkeebaa maxay tahay ku sheegay arrintaas inay arrin xun tahay qaab xumana ka dhalan karto ilaynagu haligi karo waddankeena aynu nabadda iyo nolosha u raadinayno aynu leenahay hadda kor u soo kacay wuu dumaya xaqiiqada waa taas wuu dumaya inta duluubi ka socoto noocaasi hooyo la fara xumaynayo inan sheekadii fahmi weydayoo inankii tiri stop la ceebaynayo inan yar oo malcaamid ku jirta la kufsanayo mid yaroo xool ku jirta 4 bilood ku jirta maxay tahay albaabka furan la iska soo geliyo la kufsanayo no sanadkan bilaabay inta dunuube ee ka dhacaysay ninkii yidhi gabadh lugta baan helay guriga iskaga haystay muddo dhowrkayo sixiroolaha xaguu ku haystay waxaa jirtay tiimka 8 jirka ahayd waxa dhacday ninkii sigaarka lagu dilay aqooyin badan oo saasa ayaa waddanka kusoo noqonaya oo cadaalad darradu ayuu sababta marka waxaa loo baahan yahay cadaalad darradu markaynu leenahay haddii aan dadkeena inaga madaxdeena iyo maamulkeena aan dabada laga riixin oo lagu daba taagnaan oo aanay lahaanin ururka haweenka maxay guriga hooyada baarlamaanka dumarka ugu jira dad waxa la hadaydaan yeelan oo kursiga ama ilaashanaysaan oo maxay aydan maxay eegaynin dadka shacabka aydan eegaynin ilaahayna uu ku xisaabtamaya maalinta aakhirana markhaati ay dadku idin noqon doonaan idinkaana uu madaxa ugu sarreeya ilaa iyo ka ugu hooseeya waa u simantii waxay ka soo bilaabataa qof walba halku maanta wax kaga qaban karayo baarlamaanka madaxweynaha taliyaha ciidanka mid kastaaba uu ka qaban karaa marka waxaa loo baahan yahay hay'adaha khusayso waxa ka qaban kartaan arrimaha haweenka quseeya haweenka waa ka qaban kartaan awood baa ku leediin baarlamaanka inaad ku barashgaraysaan inaad arrimahaas oo kala baaskaraysaan ilaalinaya xuquuqda haweenka ilaalinaya in lagu xadgudbo hooyo gurigeedii joogta
hooyadu waxay xaq u leedahay inay gurigeeda horteeda ardaageeda horteeda nabad ku seexato inay nabad ku seexato nabad ku soo toosto taas weeye cawaaqib xumada maanta dalkeenna haysata waxaa la ugaarsanaya waxa weeye dadkii ugu jilicsanaa maatadii caruurtii dumarkii ayaabay ka bilaabayaan oo ay ugaarsanayaan marka sidee la doonayaa dal inuu ku hagaago dal la ooyayo oo uquba ku socoto oo duluuli ku socoto oo aan maxay ahayd naxariisiba ka jirin sidee buu hagaagaya dalka waxa hagaajiya nadiif ka dhiga cadaaladiisa suga maxay ahayd waxa weeye dadka u dhashay dadka waddanka iskale dadka waddanka iskale hadduu qallibayo oo yey laga dhigay waa yey waxani yey laga dhigay sidee buu u shaqaynaya wallahi xumaaniga ma aha macni ma aayayo runtii ma aayayo laakiin aad iyo aad baan uga xumaanay wadamada qurbaha ku nool lahay waddankayga waxaan uga nimi waxay ahayd uun dib raaxa ugamaanan imanin wadamada qurbaha wax yaalaa ma jiraan maxay ahayd waddankaadi hooye haddaad istahayd ku noqo hooyaan ahay caruur baan haystaa hawlaan haystaa haddaan islaaha ku noqo haye qur-aankii ilaahay caruurtayda bari lahaa macalinkan u geyn lahaaba hadduu qoorta marayar kaga duuduubaayo uu leeyahay waa ku duuduubay uu iska leeyahay oo qur-aankii ugay gaftay uu iska leeyahay mataasaa loo guuri karaa taasaa la qaban karaa laysku aamini karaa lama aamini karo dhibta jirtana waxa weeye meel kastoo soomaali degan tahayna dhibta waa laga siman yahay koona ilaa ka koona soomaaliya dhibtaas wada haysataa sababtay wada haysataa soomaaliya dhan bay haysataa meel ay jirto sababtay haysatana waxa weeye arrintaa markay dhacdo waxaa soo dhexgelaya odayaasha dabeedna si easy lagu dhamaynaya sharafta qofka lagama fikrin sharafta gabadha lagama fikrin arrintaas waxay u baahan tahay in la ilaaliyo lala jaan qaado dadka lala jaan qaado lagu ilaaliyo xeerka la baaskarayo arrin xakamaynaysa arrin shacabka iyo dadku u dhan yihiin in arrintaa la horkeeyo mooshin in arrintaa maaragtay arrin lagu dhaqmo noqdo ka mid ah dastuurka marka waxaan leenahay dhammaan waxaan leenahay arrintaa aad iyo aad baan uga xunnahay mar kasta way soo noqnoqotaa mar kastana waa maaragtay dadku waxay uga hadlaan siyaabo kala duwan qof walba wuxuu ka hadlaa aragtidiisa dad baa maaragtay dadka marka waxay dhahdaan iska daba raacaya marka waxaan u baahannahay war dadku ma wada xumee dadka xumee wuxuushta hala iska qabto war dadku ma wada xumaa dumarku ma wada xumaa raggu ma wada xumaa dadka xumxum hala iska qabto waxaad buunbuuninaysaan waxaan waxba ku jirin waxaa ka hadli laadihiin arrintii daawaca ahayd ee dadka daawaca ku ahayd ee ragnimada daawaca ku ahayd ee maxay ahayd rag looga baahnaa inay mooshin arrintaa ka sameeyaan inay ka daba tagaan qof kastoo baarlamaanka fadhiya dalka soomaaliya xaq buu leeyahay isagoo kaliya wax ka qaban kara marka waxaan leenahay odayaasha xunxun ee marka sheekadaasi dhacdo ee dhibkaasi dhaco iyada hooyo wax lasoo weydiin aabile wax lasoo weydiin example aabiba wuu dhintay kii iminka dhawaan daawanayey aabi wuu dhintay hooyadii uun baa nool inanta waa la faraxumeeyey ninkii waa la xiday kabacdina odayaalba halka ka orday ninkii bay soo daayeen odayaashii kale ka qaateen dhaqaale ninkii waa la iska fasaxay inantii halkanay dhaawac ku tahay aabbo ma haysato hooyadeedna markii loo soo sheegay arrintaba dee lagalama tashanin odayaashaas waxay qaadanayeen qaatay hooyadeedna halkii bay ku miyir beeshay oo ay maxay ahayd iyaduna ay heshiinka duqeyn gaadhay maxaad ka odhan lahayd odayaashan quraabanaya ee hablaha yaryar ee dhibaatada loo geysanayo ku mamay maxaad ka odhan lahayd arrintaas waa musiibadana waxa loo baahan yahay laga hadlo arrintan waa musiibo way soo noqnoqonaysaa waxaan leenahay arrintaas dadka mas-uulka ka ah ee dalka inoogu sarreeya xilligii nabigeena calayhi salaam asxaabtii oo dhan xilliyadii ay soo mareen dadkii u kala dambeeyay asxaabta geedka hoostiisa seexan jireen habeenkii ilaa ay guryaha soo maraan qofka gaataysan ay soo arkaan may markaa gemi jirin may seexan jirin mas-uuliyaddu waxay tahay ayuu fahmaya qof dadka kalena maalin uu mas-uul buu ku taagayey kama soo baxayo xafiiskiisa iyo meeshiisa marka waxaa loo baahan yahay warniyahow damiirku inagama dhimin dadka inta ugu badana damiirku kama dhiman waxay u baahan yihiin dad wanaagsan oo arrimaha dabada ka riixa waxaan leenahay dadka dhiban maalin kaste waan u hadlaynaa waxa weeye intay naftin ugu jirtana waa hadlaynaa waa u sheegayna ma dhalaynayna qof ma dhalaynayna madax waxaan leenahay madaxdeena waxa weeye madaxdu waa halka ugu sarreysa
waxaan leenahay arrinkaas hal la gaarsiiyo maxay ahayd arrinkaas hal lagu barashgareeyo arrinkaas yaa lagaga hadhay waxay si khaas ah u taabanaysaa aan leenahay haweenka Soomaaliyeed ee maaragtay ku leh masabka meesha sare ku leh ayaa arrinkaas u taala kulligiin waxa u baahan tihiin ama xisbiye ka kala socda ama meesha dad kala socda waxa u baahan tihiin inaad gacanta qabsataan arrintaasna ka dhigisaan waa umaladoox hooyo umul ah ayaa maaragtay dib loo geysanayaa carruur baa dib loo geysanayaa hooyo gurigeedii ku casheynaysaa lagu soo warrayaa xilli rabadaana waxaan leenahay markaa arrintan waa masiibo masiibadana waxaan leenahay insha allah inaga hortagaysa social media inta ku jirta Soomaali aad u fiican baa ku jirta Soomaali aad u badan baa ku jirta social media waxyaalo kale waa ka hadashaan walaalayaal maxay heetoy waa boonboonisaan ilaahay khayr ha idin siiyo si bal wadankeenu aynu wax uga bedelo amba aynu maxay heetoy dhibta jirta iyo ma arkaan baan maraynaya aynu u tusno social media meesha wax la isku gaarsiiyo inaan ka hadashaan isku dayaa waxyaalaha easiga ah ee aan wax dhibi ku jirin ee boonbooninaysaan YouTube-da gelinaysaan awalinaysaan inta iska daysaan ta u serious-ka ah ee runta u baahan in laga hadlo laga hadlo tacadiga ee lagu kacaya haweenka hooyooyin kale iyo ubadka yaryar ee dhallaanka ee soo kacaya taas ayaa inooga baahan habeenka iyo qiyaamaha ee waxaan ku huriyay ajir baa ku helaysaa mar inta aad nooshahayna wadankaadii baad ku toosinaysaa social media waa meesha ugu dhegta dheer leh ee wax laga faafiyo inaan ka hadashaan isku daya tacadiyada Soomaaliya ka socda iyo carruuraha yaryar ee maalin kastaba waxaan ku huriyay lagu samaynayo tacadiga waxaan fariin halka si toos ah ugu diraynaa aan u sheegaynaa dadka khusaysa hay'adaha khusaysa inta daawan doonta walaalaha daawan doonta waxaa lana share gareeyo gaarsiiya dadka ugu sarreysa madaxda inay maqasho maalinta qiyaamo markhaatibaan idin inaad dadka xukumayseen in carruuraha yaryar iyo dulmiga iyo dhibtaas maaragtay waxba ka qabanayeen waxaan leenahay arrinta dadka fasaadka samaynaya dhibta samaynaya dad Soomaali ahaan waa boonboonisaan ilmaha yar ee 8 jirka ma naqaano cidiya maanta laakiin wana damqaysa waxana damqaya hablaha tibactid caay maanta soo kacay ee hooyad ku soo talacday intaas oo lagu soo tabcay abad ku tabcay inuu maanta qof sharafteeda iyo karaamadeeda dhaafiyo wax la adkaysta maaha habla way kula dhasheen way dilan dhasheen waa qabtaan xaleeda maanta inaa maartay gaarsiisan fariinta insha Allah madaxda ugu sarreysa video-gana uu gaaro insha Allah ismaha arrintani aynu wada kacno inkasta aad joogtaan dal iyo dibadda aynu wada kacno ka hadalno dadka dhaqan xumada lagu samaynayo kabacdi la dilayo naftaba la dhaafinayo iyo kuwa silaca ku noolba ilaaha uu ina weydiinaya in abuurtay maxay heetoy dadka ay khusaysa wax ka qaban karayana aynu u sheegno inaga laftarkeenuna aynu cod wax kaga qabanno inta u dhowdhowna gacan iyo codba ha adeegsato aad iyo aad baan idin jecelahay Soomaali weyn meel kasta ay joogto dhammaantiin waa idin wada salaamaynaa waxaan kusoo gabagabanayaa insha Allah dhammaantiin waxaan ka qaban karnaa cod midaysan wax dhammaantiin waxaan ka qaban karnaa inaynu gaarsiino madaxdeena ugu sarreysa maanta dalka dhammaanteen waxaan ka qaban karnaa inaynu isku daba taagno arrinta inaga doonay waxaan leenahay hadallada maaragtay waxba ku dhisnayn waa faafisaan waxaan leenahay gaarsiiya insha Allah dhammaantiin videogaas waxaan jecelahay inuu wada gaaro dadku ay daawadaan madaxa insha Allah waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh